ciyaarta oo heetii ugu dambeysay horyaalka kubadda cagta ee Somaliland waxa foodaystay laba kooxood oo adag mid kastaana uu ka soo samata baxay isreebreebkii kooxaha isla markaasina isugu yimi kama dambeynta 90 daqiiqo ciyaartu ay socotay ayaa ahaa kuwa xamaasad iyo xiiso lahaa taageerayaasha labada dhinac ayaa iyaguna si aan hore loo arag u soo buux dhaafiyay dhinacyada garoonka labada kooxood oo mid walba ay ka muuqatay ciyaar wanaag iyo adkaanta ay kaga soo gudbeen ciyaarihii hore ayaa haddana xulka gobolka Awdal waxa laba gool iyo hal ay kaga adkaadeen xulka gobolka Saaxil mid kamid ah goolasha Awdal ayaa dhashay markii ciyaartu ay socotay daqiiqado kooban waxaana sidaas xulka gobolka Awdal ay ku xaqiijiyeen darajada ciyaareed ee ah inay hantiyeen koobka loo wada holaday ee gobolada Somaliland waxaana xulka gobolka Awdal lagu naanaysi doonaa horyaalka sanadka ee kubadda cagta Somaliland ilaa inta cid kale ay la wareegayso madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Silaanyo oo goobjoog ku ahaa garoonka kubadda cagta Hargeysa Stadium ayaa bilada ku taxay xulka gobolka Saaxil oo ku guuleystay koobka kubadda kolayga iyo sidoo kale xulka kubadda cagta ee gobolka Awdal oo iyagu hantiyay horyaalka kubadda cagta ee Somaliland iyo xubno kale oo wacdar ka muujiyay intii ciyaaruhu ay socdeen sidoo kale waxa bilada la siiyay wasiirada wasaaradaha maaliyadda iyo sidoo kale madaxtooyada iyo taliska ciidamada bilayska oo la sheegay in si firfircoon uga qayb qaateen hawsha ciyaaraha bilow ilaa dhamaad barasaabka gobolka Awdal Mustafa Cabdi Ciise Shiine ayaa ka hadlay guusha gobolkiisu u gaaray waxaan leeyahay hambalyo maanta kooxdeedu way badisay balantaanu qaadnay waxaan doonaynaa inaanu fulino koobkaasi waxa habeen u dhixi doonaa gobolka Gabiley magaalada madaxdiisa Gabiley waxaan u rajaynayaa dhammaan kooxihii meesha isugu yimid nin laga badiyay nin badiyaba hambalyo ciyaar wanaagsan bay ku dhamaatay si kastaba ha noqotee waxa sidaas ku soo gabagaboobay tartankii horyaalka kubadda cagta ee Somaliland waxaana guul kala hoyday xulka gobolka Awdal oo ay tahay markii ugu horeysay taariikhda ee ay ku guuleystaan koobka kubadda cagta horyaalka